الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان خيارتا أيها الشرف الصومالية ملك ستشوكتان باسلان كركينها هاتو. رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمال إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة إن قارسية بشهر رمضان، وأنا فرصة qof kasta oo muslim ah oo qaangaadha ay tahay inuu ka faa'iideysto. ilaahayna waxaan noo weydiinayaa inuu ciidkeena ku gaarsiiyo caafimaad iyo acmaasheena la aqbalay. khiyaaray soo dhawaada, waa qareenkii mar kale waxaan rabaa inaan 30 casho oo bisha ramadaan waxaan jeclahay inaan break ka qaato Facebook oo aan ka nasto maadaama bishii ramadaan la galay. qodobka igu horeeya afar qodob baan wax ka oranaya. qodobka igu horeeya waxa weeye aniga iyo Facebook dad badan baa waxay yaqaanaan qof nacas ah oo aan danihiisa aqoon oo Facebook sida caruurta ku mashquulsan, laakiin aniga iyo Facebook kelmad baan ka oran doonaa. waxaan rabaa inaan ka jawaabo jabhadii la oran jiray SNM jabhadda la yiraahdo. maxaan focuska ugu hayaa oo ay iga duwan tahay jamhadihii wadanka soo marayna qodobka labaad ma ka dhigi doonaa. xasan sheekh iyo amxaarka xeebta liido iyo dhiiga qolqolayna kelmadan ka oran doonaa. khudbadii Saciid Cabdullaahi Diinana kelmadan ka oran doonaa insha Allah. laakiin sidii caadada ahayd waxaan rabaa inaan iraahdo kelmad muqaddama ah. guud ahaan waxaan bogaadinayaa booqashada degmooyinka gudoomiyaha madaxweynaha SSC iyo xukuumaddiisa xubno ka mid ah. marka waxaan rabaa inaan kelmad guud iraahdo reer SSC, kelmad koobanna aan iraahdo reer Taleex. reer SSC waxaan rabaa inaan ku iraahdo waxay ugu maqaalaha hogaamiyuhu meel kasta tago waxaa la oranayaa waxaan u qalanaa degmo ama gobol baan u qalanaa. waan hubaa oo degmo dhulka inagu aynu degno maanta alxamdulillah ilaahay baa mahada iska leh. deegaanan degmo u qalmin ma jiro, laakiin waxay isweydiintu tahay dowladdeena maanta ma awoodaa inay degmooyin bixiso, dakhligeedii iyo budgetkeedii ma haysataa? jawaabtu waa maya. dhaqankaas gobol iga dhig iyo degmo iga dhig waa waxaynu ka baranay nimankii cadowga ahaa oo meesha laga saaray. waa nimanka ay garashadooda siisay labada degmo oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed oo ahaa labada degmo uuba haystay, degmada Gabiley iyo degmada Berbera, yiri gobolka Saaxil iyo gobolka Gabiley, markaasay yiraahdeen gobolka Caynabo, markaasay yiraahdeen gobolka Oodweyne. waxaas waa dhaqan dowladnimada ku cusub, waana iimaan la'aan lagu doonayo sadborsi. waxaan rabaa dowladdu dagaal bay ku jirtaa, wadanka dagaal baa ka socda. ereyga dowladda ha looga turo, hana laga tanaasulo. laakiin waan hubaa degmo maanta la degan yahay oo aan degmanimo u qalmin ma jirto. qodobkaas waa intaas. Taleex baan tegayaa. Taleex waxaan rabaa inaan ku iraahdo reer Taleexow waxaa la yiraahdaa Taleex xabad ka dhacda waxa ugu dambeysay 1920kii. dagaaladii laydin soo safriyay ee dagaal ka Taleex ka dhacayayna laba ujeedo bay ahaayeen. maadaama Taleex ay tahay magaalo fac weyn oo taariikh weyn oo qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo ajnabi ah oo Soomaaliya booqda uu jecel yahay inuu Taleex tago. ujeedadu waxay ahayd Taleex inaan la arag. qodobka koowaad kaasoo ahaa 99% dagaalkaasna waxa uu ka socday Garoowe, inta kalena waxa laga waday Hargeysa. ujeedada aad isku disheen oo la isugu keen dilay waxay ahayd wax idinka weyn. qodobka ugu weynna wuxuu ahaa in la aaso Taleex si aanay ugu yaraan u soo bandhigin waxa maanta laga arkay. qodobka labaadna wuxuu ahaa inaan dhulbaanta tashan. haddaad moodayseen idinku inaa isdilayseen, idinku dagaalka waa matalayseen. magaciisa un baa qaadanayseen iyo dhibtiisa, laakiin dagaalku wuxuu ka socday daaha gadaashiisa. taa wayna ogaataan. Taleex maanta waxa ay soo bandhigtay wax Ilaahay lagu mahadiyo. waxaana rabaa inaan u mahad celiyo inta gacanta ka geysatay, si khaasana aan ugu bogaadiyo oo ugu duceeyo hablaha aan ogahay inay mishiinka waxa dhaqaajiye yihiin.
oo dal iyo dibadba jooga waxaan rabaa taleex inaan u sheego qof kastoo Soomaaliya ama ajnabiya wuxuu u baahan yahay taleex inuu arko wuxuu u baahan yahay taleex inuu isku soo sawiro wuxuu u baahan yahay taariikhda ugu facaweyn qaaradda Afrika magaalada ay taalo inuu tago maxaa marka idin la gudboon waxaa idin la gudboon dawladdiina maanta idin timi oo firdhiya uu hogaaminayo iyo kuwa ka dambayn doona oo SSC baa Soomaali iyo dunida taleex tusi kara marka iyo meelaan nadwaaga ahayn uga tanaasulay inaanu Facebook ka bixin laakiin waxaan rabaa inaan u sheego Soomaali iyo reer SSC labadaba ficlan dantayda waan aqaan laakiin waxaan aaminsanahay inaan sidan u shaqeeyo dantaydu inay gashay kuma raaxaysto Facebooka filma kama daawado wax kale kalama socdo laakiin waxaan ugu jiraa Facebook wuxuu ugu horeeyaa ama social media ama media wuxuu ka yahay dagaalka lambar 1 dadka meesha maskaxdooda lagu dhago oo wax looga bedelo waa media anigu intii karaankayga ujeedadayda waxa ahayd inaan meenta kula dagaalamo mabaadida faasidka ah SNM ay wadato iyo beenawaasiinta iyo jawaasiista intii karaankayga inaan kula dagaalamo waxaan isleeyahay waa shaqo cibaado ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanaysid ayna waqtiga inuu qaali yahay laakiin waqtiga waxaan u galiyay waxaan rumaysanahay inuu istaahilo bisha Ramadaan waxaan ka qaadan doonaa break hadii la yiraahdo waa inuu bacda Ramadaan biidnillah qodobka inta san koranaya qodobka labaad waxa la igu soo noqotay maxaad SNM u focus garaysaa oo jabhadihii wadanka soo maray way badnaayeen waliga adigoo hawiye oo UNC hayo daarad xasuuqiyo Kenya galiyay adoo wax ka sheegay maanan arag SSDF wax kama sheegtid SBMT ogaadeen hawiyaha raacday wax kama sheegtid waxaan maranayaa dadka su'aasha soo weydiinaya waa laba mid waa dadka qabyaaladda wax ku dhisa iyo dadka Facebook iskaga jira waxa jira dad Facebook iskaga jira oo aan garan jahal loo socdo oo aan garanayn waxay qoraan iyo waxay akhriyaan midna number 1 SNM nimanka la yiraahdo waxaan u focus garayaan idin sheegaya barnaamijkan intaan ku dhex jiray waxyaalaha aan ogaaday waxa kamid ah jamhadda la yiraahdo SNM inay ka duwanay jamhadihii Soomaaliya loo sameeyay example jamhadda ugu horeysay Soomaaliya loo sameeyay Ilaahay ha naxariisto Cabdullaahi Yuusuf Axmed Buuha raxmatullaahi calayh hore waxaan u sheegay Cabdullaahi Yuusuf inuu bixiyay public apologies inuu ummadda Soomaaliyeed ka raali galiyay inuu Soomaaliya qori u qaato gadaal waxaan ka ogaado la sheega isaga oo wiil yar oo laba xidigla ah inuu aadan Cabdullah u tagay oo ku dhusirka gaashaniga iga dhig Cabdullaahi Yuusuf wixii uu doonayay waxay ahayd madaxnimo wadooyin badan buu u maray finally waa ninka laga macaashay in fiila Soomaaliya dib loo fadhiisto mana arag marka juxal laga reebo qof SSDF ku faanaya ama taariikh ka dhiganaya ama sharaf ka dhiganaya maxaa yeelay waxay ahayd gaf la galay apologiesna waa laga bixiyay ninka oranaya waa la mahadiyo waxaan ka macaashnay farta uu taagi karaa sida juxa laakiin de juxa ku yahay garashadiisa iyo xigmadiisa waxa idin kaga filan buuga uu qoray iyo mabaadida faasidka ah la wadaago SNM UNC hawiya ku soo hadhay hawaal la isdilay hawiya cidina iyaga uma nixin cidna uma aanay nixin waxa dagaal sokeeyaa la yiraahdaa nacayb iyo qabyaalad midna kama dhalan nacayb iyo isdil midna kama dhalan iyaga isdilay oo isdameeyay caydiidka ay ka sheekeynayaan xageebu ku dambeeyay waxaas marka aanu topigan ka hadlo oo qorshaha igu jira ama garashadeeda aan halka gaarsiisanahay ma waa iskala weynahay waxa mana arag hawiye taariikh ka dhiganaya inay amxaara u galeen ama ku faanaya marka laga reebo 91 team oo nimanka dhalinyarada ah ee reer galguduud oo xamar jooga oo siyaasadda galay dawladda Ingiriiska iska leedahay waxay laascaanood ka sameeyeen waad ogeydeen dilaalka qorshaysan oo ugu tirada badan oo ahaa waliba kuwa iyaga la shaqeynayay iyaga ayaa fulinay marka maadaama waxay samaysteen oo mabaadi ka dhigteen inay caruurtooda ku korayaan ciilqab qof kasta oo Soomaaliya astaanta buluuga ana ay aqoonsadaan cadow
صادرت شرعا وعقلا وواجب قف كست أو مسلمة أو صومالي أو ودنية إنه نمن كان مبدئيا لا دقالمو إلى أي كتوبت كينيا تطبع هذا وحي كشيكينيا النبض نمان لا sheekaystay wuxuu ugu yiri haday ogaan lahaayeen isimada dhulbahante waxa habar jecelo ay aaminsan tahay oo u qoran wallaani aynaba isugu taageen maalintii dhaweyd haday ogaan lahaayeen buu yiri waxa u qoran oo ay aaminsan yihiin oo ay rabaan aamanuun ha gaadha inay xaqiijiyaan isma ay taageen buu yiri wallaani isu taageen la burco laakiin dulmiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ba xarimay dulmiga ilaahay baa xarimay wixii ay dagaal galeen wixii ay dhagar ka shaqeeyeenna ma aanay mahadin cidda maanta ugu liidataana habar jeclo weeye ma haystaan waddo ma haystaan ganacsi ma haystaan meelay maraan ma haystaan soomaali mana haysan doonaan ilaa ay ka tanaasulaan mabda'a faasidka ah ee adduun iyo aakhiraba ay ku seegaan anigu marka SNM uma qaban nacayb ii khaasa laakiin waxaan gudanayaa waajib aan Soomaalida ku matalayo kamana tanaasuli doono ilaa ay ka tanaasulaan qodobka intaanan ka bixin waxaan rabaa dawladda SSC inaan u sheego horena waan u sheegay waa inaa ku dhiirataan oo maxkamadaysaan nimanka idin xidhan ee gacan ku dhiglayaasha ah waa inaanu hadur noqon dadka tiradooda ogtihiin ee lascanood ku shahiiday waa inaa xasuusnaataan arintaasu inaanay easy ahayn waase inaa ka sii xasuusnaataan inaydan choice kale lahayn in nimanka la qisaaso mooyaane cidi ma cafin karto cidi ma sii dayn karto cidi diya kama qaadan karto cidi uma doodi karto laakiin wixii dablay ah inaad jels kaga sii haysaan sax ma aha absolute sax ma aha waa dhalinyaro caloosho shaqaystayaal bay ahaayeen waa la soo khalday fursad siiya mar kale inay toobad keenaan la arkay hadday soo dagaalamaanna mar labaad baa la qaban doonaa bidnillahi kariim qodobkaasna intaasaan kaga baxaya qodobka iigu xiga oo saddexaad amxaarka la keenay muqdisho iyo xasan sheekh anigu xasan sheekh horaan idinku sheegay inaan waqti ku lumayo ma rabo xasan sheekhna qaabku ku yimi way isla qiraynaa moorayaan wuxuu geelu qalayo qoryaha siiyey maranaayo godadkuu qotiyo qarawga reerkiisa qaxa iyo tollaayay wixii uu qaylo kor tuuray qalalaasuhu xamar gashay la iska qaban waayo nimankii iswada qaawiyey qaranka ceebeeyey oo qoomiyadda Soomaaliyeed dalay qulubtooda ummaday qiyaado u yihiin qaadirka u maqan kuwa baarlamaanka ah ee doortayna wataan lahaa hayeeshe waxaa soo qadaa nimanka qaabeeyay oo qiimahoodii gatow laydin soo qabay ilaahay xanuunada qarsoon idinku qaasiyeel adduunyada qasaaraya ku kora qoomiya cil annagoo qun iyo qeera leh annagoo qab iyo qeera leh oo qun isu soo taagnay oo qoomiyadda Soomaaliyeed madaxa soo qaaday oo cad ugu naga qoofayaad nagu qamarteen qada maalin iyo doorateen quud bileeyna qasriga iyo taladii nimaan u qalbinkiisa xasan wuxuu sharaftii kaga ciyaaray oo qayimkii ka lumiyey kow isaga taageersanaa sida dabaysha ayuu marba jaha kaga imanayaa markaasay raacayaan saa horuu kaga imanayaa saa way raacayaan saa gadaal buu la noqonayaa saa way raacayaan saa kor buu la aadayaa saa way raacayaan saa wuu ku soo noqonayaa saa way raacayaan ilaahay baan idinku dhaarshay waxaan isweydiinayaa qof islaka inay Soomaaliya dhaqaaqi weydo inay doorasho qabsan weydo in la heshiin waayo in la shiri waayo dowr intee leeg baad ku lahayd teeramkaagii hore kansa intee leeg ku leedahay in dadka caqligooda in la caayo oo hasha geelo cunto caabada la noqdo ma aha waxaan arkay niman deni taageersanaa niman aniga shalay ila fakarahaa oo maanta deni hor ordaya war deni waa deniga taqaaneen maxaad hor ordaysaan deni habeenkii maalintii la boqray teeramkiisii hore oo garoowa loogu wada yimi oo xafladii ah ogeydeen loo qabtay wuu xanaaqsanaa garan maayo wax ka xanaajiyay xanaaqii buu ku dhamaystay rayd nowna waa xanaaqsan
iima qorna aniga jariimada deni ka geystay qof ka geystay soomaali inay israacdo inay doorasho qabsato in hore loo dhaqaaqo in ciidan la dhiso number 1 deni weeye isagana maanta wuxuu u sheegayaa dadka in khilaafka uu dadka ragaadiyey aabba khilaafka adaa u ah hooyan adigaa u ah waxaan rabaa deni inaan u sheego hadday waxani hadda dhabkaa yihiin oo aad doonaysid inaad toobad keentid oo soomaalida aad ka naxaysid talooy maqsine kow dadka xukuumaddaada ka tirsanee soomaalida kala dada wax ka qabo oo in caydid ugu horreeyo oo juxa ku xigo midda labaad puntland markii la dhisayay magacan loo bixinayay 6 gobol bay ahayd 6daa gobol garow waa looga talinayay 6daa gobol magacooda wax badan waxaa lagu haleeyay 1 person interest isagu uu leeyahay doonaya oo garow matala inuu Soomaali ku tunto waxaan arkayaa in la leeyahay dalka Puntland xagee ku yaala dalka Puntland meesha la yiraahdo dalka Puntland xagee bay ku taalaa Puntland waxay ahayd gobollo isu tagay reero walaalo ah oo heshiiyey magaceedii dadkaas ashxaas baa ku tumatay oo Soomaali ku duleysay ma aqbalayno hadda kadib isku maamul lama nihin Soomaalida waxa u sheegtaan dalka Puntland la yiraahdo meesha idinku yaalo haddaad Soomaali ka go'aysaan ilaa juxa waa tula waa go'aynaa ilmaadar reyaalow Saciid Cabdullaahi Deni iyo tiimkiisa iyo adiga dadka ku taageera Soomaalida hore u kala disheen hagardaamo inta u geysan lahaydina u geysateen quluubta Soomaalida dhowra gulufka iyo geerida jirta iyo galada yeedhaysa garabsiga shisheeyaha amxaar guudka lagu qaato badeennoo la gado iyo dhulkeennoo la kala gooyo Soomaalida gubaynteeda iyo eedu kala geynta niman baa guddoonsada inay sharaf ku gaadhaan ereyga la yiraahdo Soomaaliland kala goynaynaa waa dhagar waana xanuun waana kala dil halaga waantoobo dalka Soomaaliya la yiraahdaa jira dal Puntland la yiraahdo dal Somaliland la yiraahdo dal Jubaland la yiraahdo midna ma jiro yaan laga shaqayn oo aan Soomaalida la kala fogeyn oo hadda aan lagu dhawaaqin dagaal sokeeye oo hor leh dalka Puntland in la yiraahdaa waa horin colaad sokeeye way waa in reeraha deriska ah isdilaan way dal Puntland la yiraahdaa ma jiro waana meel ka dhac erigaasi Puntland maamul goboleed weeye Soomaaliya ayay ka tirsan tahay luuqadda ha bedesho garow waxay istaaheshaa xamar inay bedesho hadday hesho leader garasho leh oo iimaan leh oo han leh garow waxay istaaheshaa inay noqoto caasimadda Soomaaliya maxaa adiga oo landheera ah oo dhulka ah ogtahay Ilaahay ku siiyay uqdada ku geeyay maxaa Soomaalida u kala dilaysaa markaa tiraahdo dalka Puntland la yiraahdo gaalka ayaa soo galaysa maxay noqonaysaa gaalka ay markaa soo ereygaasi soo dhagar iyo dhaawac kuma aha nabadgelyada gaalka ayo war dadka aqaliga u saaxiibka ah waxan ha qabtaan Saciid Cabdullaahi Deni hadday ka dhab tahay in khilaafka la yareeyo oo ay Soomaaliya hore u socoto number 1 adigu jooji number 2 dadka aad makarafoonada u dhiibtay Soomaalida caaya ka bedel meesha number 3 godka Soomaaliya ay ku jirto si ay uga soo laabato adigu daacad ka noqo cadawga Soomaaliya ka soo hadh oo imaaraad ka soo hadh